halkani aan ku suganahay waa jaamacadda Raasa University ma markii ugu horeysay degmada Raasa ay noqoto goob markaasi diinta loo soo doonto haddaba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Raasa ayaa soo dhaweeyay munaasabadda xarka jarka iyagoo u waramayay warbaahinta Shakaal TV waxaana hadalloodii ka mid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Suldaan Badal Leeli Cali waxaana ahaa dadkii ka yimid gobolka Faafan gaar ahaan degmada Gursum maanta lama soo koobi karo dareenkayga sababtoo ah kolley inta cimrigay ku jiray waa markii koobaad aan arko saddex arrimood jaamacad diini ah oo laga furay dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida degmada Raaso waa markii koobaad aan horta arko jaamacad caynkaas ta kale waa markii koobaad aan arko isku tashi intan la eg oo shacab يعني إنه شعب كهنتيدو إنه شعب كوتشرتو حقو إنه شعب كوتشرو وحقبسوا إنه شعب كوتشرو وأمريكي كوبايدا نركي هقول أنت لا يقول شعب قبصة أو إسكتاش اللي هو قبتي تكلا إن بدن بانصور شرني إن كبدن الله ينسيه وأمريكي كوبايدا نركو دولة كبعين يسدين تهذا كرمه وقاعد يسا رعلنا كعبتكو إنه إسكتاش أو وحقبصة oo diinta in kor loo qaado xabaysan oo garab taagan waa markii koobaad aan arko marka saddexda qodob maadaama oo jiraan waxaan aad ugu faraxsanahay arinta meesha ka dhacday saddexda qodob ana sababtay dadkii qabtay iyo dawladdii arintan raaliga ka noqotay intaba waan u hambalyeynaya waxa kale oo ugu baaqaynaa shacabka dawladda deegaanka Soomaalida isku tashiyada noocan oo kala ah inaynu sii wadno jaamacadana inay tahay jaamacad ummadeed ummadda islaamka gaar ahaan dalka muxuu ahaa Itoobiya dadka Soomaaliyeedna meel u joogaba gaar ahaan u tahay deegaankana u tahay sidaa darteed waxa la yahay jaamacadda hal lagu soo hirto jaamacad degmo dhisatayeenaan u arkin jaamacad deegaanku dhistay weeye jaamacad dalka ka hirgashay weeye aad iyo aad aan uga qayb qaadano iyadoo dhismaheeda kaliya ahayn dhalinyartu iyo waxbarashada hal la soo xoojiyo ta kale waxaan aad ugu rajo weynahay ilaahay hadduu ilaa cimriga ha noogu simee inaan kaga bixi doono ma garanaysaa qabyaaladda muxuu ahaa isnacaybka muxuu ahaa istabagoynta iyo siyaasadda waxaas inaan kaga bixi doono sababtoo ah dhalinyar wax baratay oo diin baratay inay ka soo baxda jaamacaddan ummaddana midaynaysa islaamnimadana maaragtay ku midaynaysa walaalnimada wax badan bay ka tari doontaa marka waxaan leeyahay kuwii wanaaga arka iyadoo inaga dhex tuurtay xumaanta iyo qabyaaladda ilaahay ha inaga dhigo aad iyo aad baan idin salaamayaa waan dhawahay walaalayaal ninkan waan soo dhaweynayaa TV-gina Shakaal TV aad baa farxadayda waa farxadaan la cabiri karin ilaahay uu garan hayo xitaa bilaadan una cabiri karin anu dadka meelaha ka soo imaaday baan ahay soo wafteeyay yimid waa waqtigii koobaad ee deegaanka u gaadho ama Itoobiya ay gaadho jaamacad islaami oo la hirgeliyo oo haddana waliba la daahfurayo dhismaheeda intii la dhameystiray ruuxii muslim ah iyo ruuxii shacaar ama uu ku beerayahay qalbigiisa shay diimi ah waa aad buu ugu farxaya aad baan ugu faraxsanahay culimadana waan uga mahadnaqaynaa ilaahay noo suurtageliyeen waan uga mahadnaqaynaa inninkana waan idin mahadnaqaynaa khayr Allah idin siiyo haddana nagala qayb qaadateen iyo intii soo ayagu waa ka qayb qaadatayba aad baan u faraxsanahay oo una faraxsanahay wuxuu nooga dhigan yahay maanta maalintii nabigu diinta uu soo gaarsiiyay ma gaadhay laakiin ku dhowdahay maxaa yeelay maalinkaana diintaana soo gaarsiiyay maantana shacaar weyn oo diini ah ayaanu gaadhnaa la dhihi karaa marka aad bay farxadaanadu hawada u maraysaa si aan la tacbiirin karin bay maraysaa wax fara badan oo diimi ahna noo suurtagalo waanu aragnaa waxayna tusaan culimada sida noogu hirgeliyay inay dadka muslimkii una islaamnimadkii dhimanine dadku uu tabar yareeyay deetana la kici karo intii la isku tashado wax weyn la sameyn karo dadka kale ee marka meelaha ka yimid waxa leenahay oo culimo tashatay tashada oo idiga sidoo kale wax u hirgeliya aan leenahay Allahuna baritaas aad farayda dadka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan walaal waan ku dhawahay TV-ga Universal Raasa waan ku dhawahay Allah ina barakay magacayga waxa la dhahaa Cabdixakiim Shariif Maxamed Umar baa la dhahaa waxaan ka soo kicitimay oo ka imaaday gobolka Shabeelle xaruntiisa degmada Goday waxaan intaas safarka lugta ee soo dheer u soo marayay in aan ka qayb qaato farxadda maanta
ay reer raaso ay waxaa weeye isku tashigooda iyo waxaa weeye himiladooda ay gaadheen ay ku muujinayaan inaan la muujiyo ayaa waxaa weeye waddada dheer aan u soo maray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulillahi rabbilcaalamiin waxaan leeyahay hambalyo guul baan leeyahay waxaan u hambalyaynayaa awalu jaamacatin fii ardi lhijratayn yacni jaamacatii ugu horreysay oo waxaa weeye saxaabada meeshay ardayda labada kor usoo hijroodeen laga hirgeliyey waxaa weeye dalka etoobiya jaamacadda ugu horreysay islaamiya waxaan intaa farxaddeeda kusii darsanaya inuu annaga mustaqbalka annaga aad u fiican yahay oo jaamacadihii meelo fogfog loo doonan jiray insha allahu tacaala aan ka helayno waddanka annaga dhexdiisa gaar ahaan degmada raase aan ka helayno insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan kuwii wax ka bartay ka aflaxa aan noqono dhammaan waxaa weeye ummadda muslimiintaana waan u hambalyaynayaa waxaan rajaynayaa waxaa weeye carab iyo cajami in laga aflixi doono insha allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا مقعيقة كبلاوية وحالي هذا مقعيقة بارح النور معلم الفارح كم إذا أرضها جامعة راسو كلية دينا وحنا قنيسة كلية الشريعة وحان ما أنت هذا وفر أحسن هاي إن حرك شريو اسمها جامعة راسو وإن بدن أنو تمنيني أو بحرين ورجيني رجحناجي بعد ما مودامات الناس ورتجلي وحنو إلهي وحمدنا إن بدن وحنو لنا هي الحمد لله رب العالمين حمدي وفي نعمه ويكافئ مزيده وبعد جامعة الراسو وحوي أول جامعة أسست في إثيوبيا جامعة يعني تيوجو الرئيسي لقى باللابو لقى هرجليو إثيوبيا ويان صادرات وحانو لنا هاي ضمان ضدك الراغبين تا جعل جامعة إن ماذا ونقول سود هذا بانو لنا مرحبا بانو لنا أنت كذب وحانو لنا هاي جامعة دني أساتذة أما معلمين تا معنيه كهول جلا وارق تجدد أيوس الرئيسوي طلبة أما أرضها لقتنا وأرضي هيجن أو ديارها إن برتان وديارسن إلى دكتورات كبرتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كله عنده ويتيفيجا ولا الله وان كم عصنت هاي مقعي وحالي هذا داق محمد عبدي وحنكسر قيب قالي حلفدة كحرك شركة جامعة راسو أنا وكاي ماذي عاصمة اللواد دول الديوان كم مقالة الجدي ونصو كعي كقيب قالك حلفدة جامعة حلفدة هي جامعة حركة لقتر هيو أنا كشخص هنقول لي وحيتها هي الرموين بيتها هي عد والباء روح والباء مسلمة أما وحبران كرته وحيوتها هي فهي بيوتها هي وحي لي جامعة أصل كذي وحيكوسو سعتي جيد هستي وحيكوسو سعتي أنا يعني لو صبرته مساجدة ماله بدن إيه كان حضارة هذا ودونكم مرة هيو أنا جامعة وبدل شيخ مهندس كه خيرون الله كوجي يا شيخ عبد القادر وصاب علم بدن يا عالمين بدن ومد بدن كسو فلين وكسو حبرتين وأساس كان أسكالها إيوه مهندس هوها أساسها هوشن يفكر كانوا كسر محدي أسألنا خيرون الله كوجي زيه أنا ونوح نوتهاي فرحة وين بنوتهاي وحيالها عن جامعة دي إلى ذا وحويان بشي صدقي توم بلادنا مرة يسمعن تنحرق هذا الشري أيوة أي علاج كأرت إلى ذا اسمه هذا وحن لوار كيا وكلاته أرضي هذا فربنا ساعد سنة والبا أنا كقل جمين يسوع بقلال أرضي كقل جمين يسوع مركا آدي أدبان أو فرحسن هاي جامعة آدي أدبان أو فرحسن هاي ونسول وينيا آدي أدبان نسول وينيا وما صنتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدل بشار محمود شكال تي في بقالة الراسو.